بسم الله الرحمن الرحيم داوديال صاحبيال kusoo dhawaada garabla TV oo aad uga barateen barnaamijyo xiiso leh magaciigu waa Yaasiin Aadan Weheriye barnaamijkan waxaa marti inoogu ah mudane Isxaaq Samatar oo ah musharax xildhibaan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya mudane Isxaaq Samatar kusoo dhawaa wareysigan waxaan maanta ka wada hadli doonaa hankaaga siyaasadeed xaaladaha cakiran ee gobolka Shabeellada Hoose qaasatan marka iyo muranka ka taagan muddo kororsiga oo ay dowladda federaalka Soomaaliya halka sano ay ku darsatay kusoo dhawaaw garabla TV su'aasha ugu horeysa marka hore aan ku weydiino waxa ay tahay maxaa kugu dhaliyay in aad u tartanto xubinnimada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya soo dhawaaw walaal waa dhawahay Yaasiin waa mahadsan tahay waxaan u mahadcelinayaa TV-ga garabla TV iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayaan u mahadcelinayaa walaal waxa igu dhaliyay inaan u tartamo xilka baarlamaanka dowladda Soomaaliya waddanku wuxuu u baahan yahay walaal jiil cusub oo la yimaado daacadnimo iyo adeeg bulsho wanaagsan iyo mas'uuliyad dhab ah waxaan igu dhaliyay inaan noqdo codka dadka aan la maqlin inaan noqdo sida dhalinyarada ganacsatada yaryar haweenka iyo qoysaska la daala dhacayo amni darrada shaqo la'aanta iyo adeegyada bulsho ee liita ee ka imaanaya xagga dowladda waa gartay haddii lagu doorto waa maxay saddexda arrimood ee ugu muhiimsan ee aad ka bedelayso ama mudnaanta aad siinayso in aad wax ka qabato dadka aad matalayso walaal haddii la doorto waxaan qabanayaa arrimo wanaagsan arrimo badan ay ka mid tahay amniga in laga shaqeeyo dib u heshiisiinta waxaan kaloo ka shaqeynayaa walaal maaragtay shaqo abuur in loo sameeyo dhalinyarada iyo in la hormariyo dhaqaalaha waxaan kaloo ka shaqeynayaa walaal adeegyada aasaasiga ee u baahan yahay waddanka sida waxbarashada caafimaadka iyo cadaaladda dabcan xildhibaan hore ayaa booskan haatan ku jira maxay tahay waxa adiga aad ka bedeli karto ama ay kugu dooranayaan dadka aad doonayso in aad matasho walaal waxaan la imaanayaa nidaam hufan iyo isla xisaabtan ayaan ku shaqeynayaa u gudubno marka kale dhanka kale xiisad ayaa haatan ka taagan gobolka Shabeellada Hoose qaasatan marka gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan magaalada marka waxaa dhawaanahan ka dhacayay dagaallo iyo isku dhacyo dadka deegaanka ah sideed u aragtaa adiga ka musharax ahaan dagaaladaasi maxayna tahay waxyaabaha soo celcelinaya dagaalkaasi halkaasi ka dhacaya walaal markii aan dagaalka u guda galo wuxuu u dhaxeeyaa dagaalka waa dhibaato iyo xasuuq ba'an oo loo geysanayo dadka aan ku matalayo kursiga reer galmudug waxaan leeyahay odayaasha dhaqanka iyo maaragtay nabadoonnadu inay ku dadaalaan arrintan maaragtay dib u heshiisiin furaan xabad joojin rasmi ku dhawaaqaan dhibaatada jirta walaal waxaa weeyaan Soomaalidu waxa waaye way dagaalamaan laakiin waxaan jirin isla xisaabtan waan arkaysa maalmood waxaa dagaalamay dowladda iyo mucaaradka dadkii ku baaba'ay maaragtay dhibgooda hadura laga dhigay qofkii ku dhaawacmay qofkii ku dhintay sidaan mid kale dagaalka waxaa horinaya rag dowladda u shaqeeya oo ninka hogaamiyo ciidamada qaranka 14 Oktoobar ninka hogaamiyo taliyaha iyo rag kale ayaa ka shaqeynayo waxayna doonayaan inay u isticmaalaan ashaarka dowladda shacabka inay ku gumaadaan meesha degan marka waxaan leeyahay waxaan ku baaqayaa dib u heshiisiin iyo xabad joojin rasmi ah ku baaqayaa iyo cadaalad iyo magdhow in la xisaabtamo qasaarihii dagaalkaas ka dhacay waxa ugu muhiimsan waxay tahay cadaaladna waddanka ma jirto magdhowna kama jirto qofkii hadduu qof dilo ama hadduu wax walba sameeyo wax qal xisaabtama ma lahan den ayaad u jeedisay taliya halkaasi jooga wax cadeen ah oo arrinkaasi ku saabsan miyaad haysaa adiga walaal way cad yihiin ragga waxaa soo rag badan ayaa la xiriiray oo meesha degan deegaanka ah oo u dhashay galmudug kasoo jeeda oo dadka aan ku matali doono kursiga aan ku tartamayo dhibaatooyin geysteen inay soo weerareen dad maaragtay degan oo beerley ah iska caabiyeen kadibna rag tuuto wato ay yimaadeen oo gawaaridii dowladda ee gaashaanay ku dagaalamaya marka waxaan leeyahay ninka taliyaha ah ee meesha haysto waxaan leeyahay ugu baaqaya inuu noqdo qoortii laba garab dhaxaysay
oo dadkaas walaalaha oo heshiisiyo haddii uu heshiisiin karina dowladda la xisaabtada xilka qaado markaas wuxuu noqonayaa maaragtay nin dowladda u shaqeeya oo caadil ah ama wuxuu noqonayaa nin dowladda ka tegey markaas wuxuu sameeyaa aan arkaynaa. waa gartay sideed u aragtaa doorka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku leedahay xilaafaadka halkaasi ka jira mase u aragtaa in ay ku guuleysatay ilaalinta amniga deegaankaasi? walaal waxaan u arkaa dowladdu inay ku guuldareysatay ammaanka dadka shacabka guud ahaan deegaankaas ahaado ama deegaanka la ahaado way ku guuldareysatay dowladdu shaqadeedana maysa gudinin. waxaan leeyahay dowladdu waa in ay ka shaqeysaa cadaaladda. walaal markaad dib u laabto waxaad arkaysaa dowladdu intay waddan ku fadhisay 4 sano ee ugu dambeysay cadaalad kama shaqeynin, caafimaad kama shaqeynin. waxaa arkaysaa dadka Soomaalidu waxa way dad baahan maaragtay qoota maalinkii wax ka $1 haddana dadkii waxay isticmaalayaan 4 years ama ka badan isbitaallo bareefad ah. marka adduunka waa lala dagaalama bareefadka waa in dadku helaan caafimaad. waxbarashada markaad eegto dib u eegtid maaragtay imtixaanada ay wax dowladdu qaadayso waxaa arkaysaa 2 years imtixaankii la qaaday ayaa haddana loo keenayaa ardaydii. marka waxaan leeyahay dowladdu way fashilan tahay, amniga ku fashilan tahay, caafimaadka ku fashilan tahay, waxbarashada ku fashilan tahay. marka waxaan leeyahay way ku guuldareysatay dowladdu arrintaas. aan u soo noqono markaan dowladda federaalka Soomaaliya maadaama aad tiri waa ay ku fashilantay waxyaabihii loo igmaday. marka haddii ay dhacdo in sanadan haatan 1 sano ayaa dowladdii hadda lagu kordhiyey oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidoo kale 1 sano ayaa lagu kordhiyey, sidee u aragtaa halkaasi sano oo lagu kordhiyey? walaal aniga horta gebi ahaanba waa kasoo horjeeda dowladdan waxaana halkaas sano Soomaalidu waxay yiraahdaan walaal cimriga ceeb laguma sagootiyo. ninkan marmarsiyo samaystay inuu dastuurkii ansixiyey, dastuurkana maaragtay baarlamaanka ayaa ansixiyey. inkastoo baarlamaanka aysan ka hadlin oo aysan difaacin ay ku guuldareysteen haddana ninkii ay la shaqeynayeen oo halka sano ugu daray inay difaacaan. waxaan leeyahay cimriga ceeb laguma sagootiyo. waa 1 sano ragga mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladdan fadhiidka ah waxaan leeyahay sida xisbigayga Tawfiiq iyo xisbiyada kale ee lamidka ah Himilo Qaran, Khayre, Farmaajo inay isku tagaan ay ka tashtaan maxaa xiga 1 sano. anigu ma qabo batatan in dalkan dadaala dhacay 40 sano dagaalka in dagaal lagu horiyo. waxaan qabaa in loo daayo halkiisa sano kadibna laga tashto 1 sano kadib maxaa dhacaya. ay dhacdaba in dadka aad damacsan tahay inaad u noqoto xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliya ay maaragtay kuna guuleysato codkooda ee aad noqoto xildhibaan, maxay tahay waxyaabaha 1 iyo 2 iyo 3 ee aad u qabanayso dadkaasi? waxaan ka shaqeynayaa qaabka ugu muhiimsana waxay tahay inaan ka shaqeeyo maaragtay shaqo abuur inaan u sameeyo dhalinyarada, inaan deegaanka hormariyo, amniga inaan ka shaqeeyo, dib u heshiisiinta inaan ka shaqeeyo, adeegyada aasaasigan inaan ka shaqeeyo sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo maaragtay cadaaladda. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. waxyaabo badan ayaad ballan qaaday. waxaan rajaynaynaa in aad haddii aad noqoto baarlamaanka qof ka tirsan ama xildhibaan ka tirsan in aad ka soo bixi doonto ballanqaadyadaasi, dadkana ay kugula xisaabtami doonaan. daawadayaal saaxiibayaal, kaasi wuxuu ahaa mudane Isxaaq Samatar, xildhibaan ayuu u yahay musharax dowladda federaalka Soomaaliya. waa mahadsan tahay Isxaaq Samatar.